ومركل إيو بقر كفرحدة إيو كفتن كقبيلة الصومالية داود الشيكدان ولا مكلا حناقان عاطفة إيو عنصرية دي سنكو قادين لجان قاد نولش مانتا برين أدير قرو سببتو قبيلة جنة إيو النار منكو مجينيان وهجاج عن وجوه رئيسين وقبيلة كواد يا كفتن كينا بقر كفرحدة كو قبيلة مرنصدة وقبيل لجو إيديه إن يقيب وين كيهين إسبدل كإملة عالمك جارهان إملة الصومالية قرمد مدوي وحا أي شيكتي إن مرنصدة أي وسقيين هودا مركا أي مقار كرريان إيا مركا للدجنيو أوركا إيا كم ككسوبها أيا سبب واه إسبدل كإملة الصومالية لابو قبيل كأبقال وقبيل ككلية اللودي دي إني كونوا الأذان مريكان كأيروب sababtoo ah dadku waxa ay wataan gawaarida kala ah Ferrari, Premio, Mercedes balse iyagu waxa ay ku dhagan yihiin dhaqankoodii asalka ahaa kaas oo lagu xasuusto inay dameeradu gawaari ay u yihiin Mareykanka iyo Yurub marka ay tageenna waxa ay bilaabeen inay dameeradu kaxayaan oo ay ku soo adeegtaan suuqyada iyo supermarketada safarada ay ku galaan magaalooyinka taasna waxa ay ka dhigan tahay in gabi ahaanba abgaal wax sharci ahaan laga siinin caalamka saddex qabiilka ma jeerteen qabiilkan waa dad yaabkoodu wata in ay Soomaalida ka faanaan ay qaarkood hadana diinta uga baxeen laakiin ma jeerteenku waa qabiilka ugu badan ee Yurub asal ahaanna sheegta inay yihiin Arab taasi oo keentay in dhalinyaro fara badan oo qabiilka ma jeerteen ah qaarkood ay noqdaan adaris iyo waliba qaar diinta ka baxa afar raxweyn qabiilkan iyaguna caalamku waa ay ka qayliyeen sanad walba waxa ay leeyihiin baahana waliin dhiib laakiin had iyo jeer gaaladu deeqda iyo macaawinada waa ay ka dhameeyeen tolo dadka ma dirgaamiya ma doontii nabi nuuxba ya salaam shan dir qabiilkan waa qabiilka kaliya ee Soomaali ah haddana laga helayo muslim iyo gaalo ogowse daawade dunida kala bar waa dir balse dirtu Soomaaliya waa ay ku dulman yihiin caalamkana iyaga hogaamiya lix qabiilka Shiiqaaleed markiiba waxa kugu soo dhacaya dad ahlu diin ah oo aan lagu aqoonin isbaaro laakiin iska ilo waxaasi oo dhan shiiqaasha sanadahan dambe waa laga qayliyay qabiilkan inta badan la sheegta marka Yurub iyo Ameerika la joogo hadda waxa ay noqdeen kuwa markaas isbaaro dhigta tuugo iyo waliba boobka hantida Soomaaliya daawade waa la jan socdaal oo ku leh kaftanka qabiilada Soomaaliya halkaas ay noo joogo ku meeshan garay qofka aad ka taqaano qabiiladan aynu soo sheegnay waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo Soomaali oo ka xuruudo qabiilka ay la daalaa dhacayso